بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الله سمريد ملك شوكتان بإلهي سبحانه وتعالى يدكوان ما يلو عدي بنبك الله كقاضو عدي دل الله وفي انت بهنا الله ديقو انت بكتا الله بكسيو intii dhimatay allah u naxariisto, waalidiintan allah u naxariisto, annagana allah nooga daba naxariisto, dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlayaa laba qodob. qodobka koowaad, khudbaddii Siciid Cabdulaahi Deni kelmadaan ka waranaya. qodobka labaad, booqashadii Abiy Ahmed ee Muqdisho, iyadana kelmad baan ka waranaya. Daacish meel fiican ayaa la marinayaa. waxaa laga qabtay saldhigyadii ugu muhiimsanaa, waxaa gacanta lagaga dhigay hub aad u tiro badan, waxaa laga dilay cadad aad u tiro badan oo dhammaantood ama 99% ah dad ajaanib ah oo meelo kale ka yimid. arrintaas waa arrin runtii naxdinteeda leh, laakiin farxadeeda leh, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku mahadsan yahay kuna sharfan yahay inuu awoodda iyo guusha naga siiyey. cadowgaa soo duulay oo makriga iyo dhagarta u maleegayay dadkaas masaakiinta ee iska hurda. muddaan ka qaylinaynay meelahaas kuwo kale oo shabaab la yiraahdo oo iyaguna gosha dhankeeda kale ku jira, oo aan ka dhib iyo khatar yarayn, oo ka mashaakil yarayn, oo ka qorshayaal xumayn, oo ka qorshayaal fiicnayn ee kasii qorshayaal xun. ilaahay waxaa ka rajaynaya inuu ku baraarujiyo dowladda Puntland inay kuwaasna dagaal ku qaado. khudbad waxaan dhegaystay dheer oo presidential ah, runtii presidential ah, heer caalami, heer Soomaaliyeed, meel walba gaarayso taabanaysa. runtiina aan isiri aad buu uga fiirsaday Siciid Cabdulaahi Deni, wuxuuna iska eegay, iska dhowray caatifadii iyo magaranaysaa caradii iyo xanaaqii uu iska dhowray, si mug iyo miisaan lehna baaq buu ugu jeediyey ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad maamul goboleedyada. wuxuu aad iyo aad uga digay inay jirto khatar weyn, dhulkuna ama dalkuna uu gacanta ka sii baxayo. wararkaanu oran jirnay annagoo baqayna, wax akhris ku ogaanay, xogo iyo akhbaar aan helnay ku ogaanay, ayuu madaxweynuhu maanta ku dhawaaqay. ku mahadsan yahay, inkastoo aan khudbadiisa hal kelmada dhibsaday. in loo mahad celiyo imaaraad isla markaasna la raadinayo in Soomaaliya ay hagaagto waa laba isdiido aan iswaafaqayn wey. imaaraadku cadowga Soomaaliya ay leedahay ee muuqda hadda, ee argagixisada iyo balaayo dhan uga daran, ee u raadinaysa Soomaaliya sidii ay u burburin lahayd, waa imaaraad. marka waa jeclaan lahaa inuu kelmadda ka baaqsado nin Soomaaliyeed oo siyaasi ah oo Soomaali danteeda ka hadlaya oo imaaraad ku soo daraya farbaa ku godan. meeshaas waa dhibsaday, dhaawac bayna u yeeshay khudbadda. intii kale khudbaddu waxay ahayd hadal gobeed, in shabaabka lagula dirirayo koonfurta iyo daacishta lagula dirirayo Puntland ay isku mid yihiin, wiilasha la dirirayana ay wiilasheeni yihiin, labadaba si isku mid ah loogu tacsiyeeyo, si isku mid ahna loo garab istaago, si isku mid ahna loo taakuleeyo, si isku mid ahna loogu qareemo, ayaa xaqiiqada dhabta ahi ay tahay. Soomaalinimada dhabta ahina sidaa weeye. meel kastoo qof Soomaaliyeed lagu dhibaataynayo waa dhib adiga ku soo gaaray, haddaad tahay qof Soomaaliyeed oo macno leh oo xilkas ah. arrintaa marka kelmadda hadduu ka reebi lahaa, khudbaddaasi waxay noqon lahayd inteeda kale bahal meel fiican gashay. waa u hambalyeynayaa reer Puntland meeshay marayaan iyo dowladooda iyo madaxweynahoodaba. meesha ay marayaan waa meel fiican. meeshaas imaaraad weligiis ishuu ku hayaa, xaafuun, gardafu, qandala, xeebahaas imaaraad ishuu ku hayaa. imaaraad wuxuu waddo u yahay, hormuud u yahay yuhuud iyo kuwo kasii fogfog oo uu rabo inuu dalka keeno. hala baraarugsanaado. inaad saaxiib tihiin macnaheedu maaha khatarta ay yihiin. saaxiibtinimadiinu Siciid kama duwana tan Daglo ama Xamati iyo tii Xaftar
iyo tii kuwa badan oo reer Yaman ahaa oo dalkoodii iyagoo arkayo ooyaya la baabashay oo la burburiyay qaarkoodna iyagu rababa inay wax ka burburiyaan oo lagu khasbay marka imaaraad soo dhawaysi male waa dawlad fasaada oo khabiith ah oo shiddo u samaysan ninbaa wuxuu igu yiri xilligii bin Zayed la dooranayay boqortooyada ay u soo arfaysay ayaa qolyaha westernku camcamiyeen oo waxay yiraahdeen ma nala shaqaynaysaa mise waxaan ku dhaafsiinaa boqortooyada oo ninka kale walaalka ayaan u gudbinaa markaas waxaa laga sheegay waxyaabaha idinku ay jeceshihiin oo dhanka iyaga looga yaqaan xumaanta adinka aniga iga yaabi doona adinka ba aniga iga yaabi doona wa ficlan hadda gaaladii waa yaaban waxay ku hadlaan bay garan laayihiin dal muslima oo dadkii muslimiinta baabi'inaya dal muslima oo hub siinaya yuhuuddu say u layso Falastiin dal muslima oo wax uu reebtay iyo wax uu la haray midna aysan jirin isku dayay dal kasta oo muslim oo dhaqan oo dhisan inuu burburiyo ilaa Masar ilaa Tunisia ilaa Liibiya ilaa Yaman ilaa Suudaan ilaa Soomaaliyana in bahasha laga ilaaliyo danta Soomaaliyeed halkaas ku jirta qodobka intaasan oranaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala sharkooda hayna dhaafiyo meel daran hayna ka mariyo ciidamada waxaan baaq ugu dirayaa ciyaaladaas argagixisada ah oo la leeyahay hayse soo dhiibeen waxaan rabnaa inaan ka nabad galno sharkooda halkaa ninkii galay oo balaayo u galay socodsiiya sharkiisa dhaafiya ummadda intaas waxa uu soo boqday waa xasan bal xiriirkaas 4 sano ku dhow intuu soo maray baan xogaa yar oo taariikh dib ugu celinaya xiriir wanaagsan oo aan isdagaal ahayn oo la kala amaan helay baanu 4 sano wadaagnay Ethiopia oo ka horeysay Xasan Sheekh Maxamuud oo ahay dawladda Farmaajo laakiin Xasan wuxuu la soo galay aragti ah wixii westernku ay rabaan oo Farmaajo waday siiwad iyaga ku qancay oo ku raaligay laakiin wixii Farmaajo initiative-kiisa ahayd oo ama siyaasadda arrimaha gudaha ahayd ama kuwa dariska ahayd kulli khilaaf sahan soo dhawayso tibaalaf xaga Eritreacay ma garaysaa maxaa dhacday xabad waxyaabahay ku caayi tireen Xasan iyo tiimkiisu Farmaajo waxa ka mid ah dekadaanu siinaynaa ganacsi oo heshiis ganacsi baan la gelaynaa maadaama ay dadkii haystaan shacabka ayo tirada badnaa annaguna aan infrastructure iska cidlaa haysano ganacsi aan isdhaafsano laba dalow darisaan nahay aan kala faa'iidaysano ceeb bay ahayd dekaduu siiyey 4 dekadood buu siiyey Ali Balcad waad ka dhageysateen hadal aan anigu hadda ka hor iriyo aan lahaa ha laga ilaaliyo gacanka cadmeed ilaa garacad wixii ka sheegay ha laga ilaaliyo maxaa yeelay dawladdu gacantaba kuma hayso mana maamuli karto meelaha dekadaha haddii gacanta loo geliyo inay iskaba qaataan baa easy oo sahlan laakiin meel dawladdu gaarto ilaa garacad buu yiri ilaa Kismaayo inta u dhaxaysa dekadaha ku yaala baan ku leeshiyeynaa ganacsi oo maxay shalay ceeb u ahayd maantana ammaan u tahay ana idiin sheegaya dawladnimadeedinaan aqoon waa barbarad waa ku barbaranaysa farbarad baatiin maalin walba wixii uu samayn jiray inta caydaan baad waxa gadaal ka ogaanaysaan war dawladnimadeena halkaas ay ahayd ha dib baa ugu soo laabanaysaa waa fiicantiin inta wax baranaysaan oo isa saxaysaan xiriirkaadu wuxuu soo maray isagoo wanaagsan buu yimi meeshii uu sii wadi lahaa wanaagii 3 sano iyo bar hadda ka hor haddii uu hawshaa sii wadi lahaa buuqna uusan gelin MOU-na lama saxiixeen dagaalna lama galeen madaxweynuhuna intuu shacabka karkariyo yiraahdo cadow kale malihiin aan Etoobiyaan ahayn haddana ma soo dhex fariisiyeen liido dadna kuma dhinteen mudaharaad lagaga soo horjeedo waa qaabka protocol xumada iyo dhaqan xumada dawladnimada lagula dhex jiro dawladnimadu ganacsi maaha dhul la boobo maaha dawladnimadu waa vision iyo aragti waa wax muuqda oo u muuqda dadka indheer garadka ah waa horumar mawjada 3 sano iyo bar ka hor haddii aad bilaabi lahayd mashruuc hadda aad ka sheekeynaysid dee waxaaba dhici lahayd in dekada dhisan yihiin laamiyana dhisan yihiin ganacsina socdo Farmaajo ku xumee maantana u soo noqo Eritrea 50 jeer taagnow
shalayna waa cadow bay ahayd ma fiicna ha wajada yani wax alla wixii aad madaxweynihii ka horeeyay ku khilaaftay baad maanta u soo noqotay cilada ku jirtay horta waa soo dhaweynayaa in warqadda lagu qoray dekado ganacsi maaha dekaduu leeyahay axmed abiy axmed ninkii waalnaa dekaduu leeyahay maaha etoobiya dhul aan leenahay oo dambe qaadanaysa kii horaan ku haysanaa ugana daba imaanayna oramada uu faafinayo ku faafinayo kililka soomaalida ama deegaanka soomaalidana haddaan u sheegaya ama magaalo dhisa ama magaalooyin dhisa dhulka yaga wixii aad ka dhistaan idinka unbaa ka baxaya dhulku ma guuro ciddii timid baa noqonaysa taa horta la socda marka inta lagu soo dhaweeyey dekadda yaa la yidhaahdo badda waad arki kartaa waad daawan kartaa laakiin ma taaban kartid annagaa iskale baashaal wey oo wax loo baahnaa waxaan isleeyahay xoogaa guuleed hurdow keenee gardaran inay jawaab fiican u tahay inay dhibaatooyinkii uu u geystay madaxweynaha xagga uu geystay ay jawaab u noqon karto aniga saasay ila tahay aragti qurux badan baa iiga muuqata laakiin waxaan rabaa inaan qodob ka saxo madaxweyne brotokoolkaaga iyo tiimka kaala shaqeeya siyaasadda 10 jeer horaan kuu sheegay kuma filna dowladnimada waa dad yaacaya oo iska boodboodaya oo aan macno lahayn haba garanayaan madaxweynahan ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxaad ummadda muqdisho joogta uga dhigtay bahal dadka cuna maalin walbaad waxaan ugu akhriyay sanad la soo dhaafay iyo waliba dheeraad cadow aan Itoobiya ahayn ma lihin kow mikrofoonkii masaajidka ku daalay si uu dhageysanayay Itoobiya inay cadow tahay goormaad ka maslaxday goormaad u sheegtay inuu ka noqday arrintii xagee buu kaga noqday adiga la oge soo inaa inta soo istaagtay tira warninkii waa isgalnay waa iska dhacshay kadibna runtu u soo dhaadhacay taydii baa la isugu yimi ninkii cadow maaha colaadiisana ma rabno dagaalnayna kuma soo wado aan kala ammaan helnaan heshiis ku nahay aan wada iskaashanaan heshiis ku nahay heshiis ganacsi iyo iskaashi ganacsi baanu ka wada sheekaysanaynaaye sidaa heleeyo ogaado dadka colaaddaa ka degi lahay mana lagu mudaharaadeen cidina kuma buuqdeen dad aad u karkarisay oo aad samadaa geysay inaad haddana ninkii soo dhex istaajisay waxay ku tusaysaa inaadan tiim lahayn cid kula talisa lahayn adiguna aad barbarad aad u damiina tahay xagga siyaasadda iyo brotokoolka iyo nidaamka wax loo soo dhaweeyo ama nidaamka dowladnimada iyo diblomaasiyadda laakiin si guul weeye Soomaaliya hadday ka nabad gashay bad baan qaadanayaa saylac baan goosanayaa xoog baan ku qaadanayaa ama xeelad baan hadday ka nabad gashay oo ilaahay dhinac naga mariyay meel dowladda federaalka ay gaartana ay tahay meelaha laga wada hadlayo in laga sameeyo ganacsi iyo iskaashi ganacsi waa guul iyo gobonimo billahi tawfiiq salaamu calaykum